waftigii simada ay saaka soo gaadhay degmada Damco kadib waxa soo dhaweyn balaaran lagu sameeyay wafti culus oo ka socda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ka qayb gali doona shirka nabadda soo xidhi doona beelaha walaalaha ee wadaagta dirtooda in badan soo noqotay halkan waa degmada Damco waxa arkaysaa in qaybaha kala duwan ee bulshada iyo guud ahaanba wax garadku ay halkan si weyn ugu soo dhaweeyeen waftigii ka socda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ay simo aan loo kala harin soo dhaweynta aynu soo dhaweynanay marka hore waftiga ay hogaaminayeen simadeena sharafta leh ay ugu horeeyaan garad jaamac garad cali garad jaamac garad ismaaciil garad absaa garad soofe suldaan siciid garad saleemaan buraale dhammaan iyo ragnin garboodka la socday garad cabdisalaan xasan maxamed dhalinyarada la socotay nin garboodka la socotay culimada la socotay aqoonyahanka la socday ku hawlanaa nabadayntii iyo walaalaheen mashaqadii ka dhexdhacday saxdheer nabadaynteedii ku hawlanaa ilaahay subxaanahu wa tacaala marka hore allaha barakeeyo maanta waxaan ku soo dhaweynay annagoon u kala hadhin haddaanu nahay salaadiin cuqaal guurti dhallinyaro haween culimaa'udiin
wasiirada ismaamulka Soomaalida saraakiisha hogaanada maamulka waxa weeye doolo oo gudoomiyaashoodu ay marayaan iyo degmooyinkii madaxa xusbiga heer wasiir ilaa iyo heer magaranaysa degmo ilaa heer gobol wakiilkii madaxweynaha runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay soo dhawaadaanu leenahay waa dalkii aad madaxda ka ahaydeen waa dalkii aad mas'uuliyiinta u ahaydeen waa dalkii waxa weeye idinku waxa weeye haddii ay noqoto siyaasad iyo haddii ay noqoto maamulba aad mas'uul ka ahaydeen waa idin soo dhaweynaynaa hadalku waa inoo dambaynayaa soo dhawaadaanu leenahay annagoo afkii dhaqanka ku hadlaynaa soo dhawaada wasalaamu calaykum mahadda labaadna shacabkan reer Ducmo quruxda ka muuqata iyo say u jecel yihiin dawladooda idinkuna waa mahadsantihiin waftiga soconayna waxaan leenahay waa u jeedaan sidan la idin rabo waa shacabkiinii iyo waxgaradkiinii iyo ismadiinii annagu waxaanu ka nimid meel malaa jirta 35 miya 47 kilomitir baanu ka nimid saaka ka soo kalahnay runtii aad baan u xiisaynaynaa inaad noo timaadeen waa in dhaweyto waa waftigii ugu miisaanka badnaa ee halka noogu yimaada weeye ka ku xigaana waxaan u malaynayaa dee waa kii aad ogeydeen ballanta aynu kala hayno waa kii madaxweynuhu hogaaminayay waxaan leenahay soo dhawaada magacyadiina ma tirin karno laakiinse waxaanu idin leenahay waa dadkiinnii oo idin jecel oo idinka sugayey wax in badan la hadal hayay marka waxaan leenahay waxa inta ka badan dib baan u dhiganaynaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaad noo timaadaan sallallahu nabiyana maxamed salawaatullaahi wa salaamu alayh marka hore baa mahad leh allaha nabadda iyo caafimaadka isugu keenay degmada Dumco maanta nabadgelyo isugu keenay bakasokow waxaan mahadinaynaa madaxweynaha dawladda Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo wafdigan ballaaran ee aad arkaysaan inoo soo anbabixiyay danayn uu danaynayo nabadgelyada iyo fayaqabka dadkan u soo anbabixiyay ee yiri si buuxda uga qayb gala wafdigani waa laba wafdi jigjiga ka yimid iyo wafdiga gobolka ka jigjiga haddaan ku horeeyo wasiiradii deegaanka wasiir Cabdullaahi wasiirkeeni Faysal Rashiid hadeerna madaxa xisbiga BB horaan u niri xisbiga nama soo gaareen hadeer xisbiga wana soo gaaray la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha amniga oo horana inoogu soo noqday dhowr jeer inoo yimid bedel arrimaha siyaasadda iyo amniga maareeye ilaahay hadduu kuu roon yahay Cabdifataax ilaahay hadduu kuu roon yahay madaxda xubinteenna cusub ee golaha guurtida aynu soo dhaweynayna aadna ugu faraxsannahay ilaahay hadduu kuu roon yahay Salebaan Xaaji Cali waa gudoomiyihii gobolka Doolo waa maraya oo dhawaan la soo magacaabay oo waliba reer dhaqana waa soo dhaweynaynaa Cabdishakuur waa hogaankii nabadgelyada waa insha Allah taala soo dhawaada insha Allah taala halkan waxaanu idin istaajinay inaanu indhihiina idin macallina hadday dad tahay hadday deegaan tahay hadday magaalo tahay war magaaladan miyay degmo u qalmin waxaynu isu yeelaynaa annagu waa bixinay madaxweynaha afkiisaanu ka sugaynaa إن شاء الله تعالى وحي كلا ورا وينو إن شاء الله تعالى وينو إسوريسان دونا وينو دقي دونا إن شاء الله تعالى هوشي نسعنين رياضة وحنوقو همبليين يا تلكود إني هشيين ما شاء الله تلكود وهشيين iyaga heshiiyay iyadoon la dhex fadhiisan bay heshiiyeen iyaga noola yimid heshiis oo yiri waxaan aanu ku heshiinay nala ogaada galabtana insha Allah taala waa la soo gabagabayn doonaa shirkii oo soo xidhmi doona inaad wafdi khayr qabtatiin halkaas la garanaya hawshaad u socoteen oo dhamaatay oo insha Allah taala waxaan islahayn 7 iyo 10 maalmood iyo talo armaydu ku qaadatay alxamdulillaah rabbil caalamiin
aad iyo aad waa mahadinaynaa imaanshaha iyo ilaahay kula danaynta iyo u soo gurmadka iyo aad baan u mahadinaynaa reer damcow baha khayrow idinna soo dhowaynta qiimaha badan جزاكم الله خيرا يا بيبا إن شاء الله تعالى رحيم كرادة يا سلطان مدي وقاسية جودهم اسمه يددوينها الضمعه دقمة الضمعه وعند السلام يا دمانتين مركز الله بعض وحوس عني أنكرني متجيجا وحنا نريدين سني سلام كتمد مدحونها الدولة دجان كالصومالي ده oo la yiri guud ahaanba suldaamada ugaasiyada garaadada iyo shacabka deegaankan ku nool oo dhanba naga gaarsiiyay naga gudooma marka labaad sidaad u sheegteen nabadgelyada aan u nimid ee u soconay waxaad noo sheegteen in meel fiican marayso waana wax ilaahay loogu mahadiyo meesha aad soo gaarsiiseen iyo halkay marayso ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inay inoo dhammaystiranto maalmahan soo socda ama bari ha noqoto ama maantaba ha noqoto inay noo dhammaystirtaan ilaahay ka rajaynaynaa shacabka deegaankan ku nool siday noo soo dhoweeyeen saad noo soo dhoweyseen haweenka dhalinyarada iyo isamadaba annaguna waan ku faraxsannahay boqolkiiba boqol waan idin soo dhoweynaynaa waananu idinla joognaa tan codsiga degmadana way u qalantaa taana madaxweynihii xukuumadda laga sugay haddii la yidhaahdo marka anigu aad iyo aad baan idin salaamayaa waan ku faraxsanahay imaatinkaanu idin nimid waxaan ku soo dhaweey Faysal Rashid waa partiga ninka hogaamiye xisbiga dawlad deegaanka Soomaalida oo dhanba dawladana waxa xukuma xisbiga inaad soo ogaataan ku soo dhaweey Faysal isimada garaadada salaadiinta cuqaasha dhalinyarada haweenka dhammaan aad iyo aad baan idin salaamaynaa waxaan idinku salaamaynaa salaanta islaamka mar labaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan waxaan aad iyo aad u bogaadinaynaa idinkana mahadcelinaynaa sida tolniimada leh ee xushmadda leh karaamada leh ee aad idinkoon u kala harin isime iyo waxa weeye shacabba aad noogu soo dhoweyseen degmada damco intaa markaan ka gudbo runtii waxaan jecel lahay inaan dareen ehelnimo iyo mid dowladnimo iyo mid kalgacalba u haya bulshada ku dhaqan deegaankan salaanta wad gudoomaysan haddii la yiraahdo annagu waxaanu nimid inaan waxa weeye hawsha nabadaynta ka qayb galno haddii la yiraahdo meel fiican oo la soo gaarsiiyay inta isku hawshay ee hawsha gashay ee waqtiga ku bixisay ee dhaqaalaha ku bixisay aqli iyo maskax bay isugu geysay aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa waana filaynay annagana inta hadhay waan sii dhammaystiraynaa haddii la yiraahdo waftigu waa wafti ballaaran waxay tilmaamaysaa sida dawladdu ay uga go'an tahay iyo xisbiguba deegaankan inuu noqdo deegaan amni ah oo xasiloon oo aan dhibaato ka jirin cidi isxagxaganayn cidina ku dagaalamayn annagana waxaan rajaynaynaa in hawshaas ay noqoto hawl qurux badan oo si qurux badan ku dhamaata dhibaato dambanayna ka dambeyn haddii la yiraahdo aad iyo aad baan idin salaamaynaa waa isu dambeynaa reer damco waa isu imaanaynaa meeshana degmo iyo wax ka badan baa u qalan tahay saagu bishaaraysta haddii la yiraahdo aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan ku soo dhaweynayaa mudane Cabdullaahi dhowr kalmood inuu ka yiraahdo kadibna gudoomiyaha gobolka بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxaan idinka mahadnaqaynaa bulshooyinka Doomo garaadiyada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada sida wanaagsan ee loo soo dhaweeyay aad baad ugu mahadsantihiin waxaan idin leenahay ilaahay ajarkeeda oo xasan ha idin siiyo karaamadaas baan oo ballaaran oo aad noo samayseen aad baad ugu mahadsantihiin inta kadib fariintii salaanta oo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaaliya noogu soo dhiibay oo ah inaan idinku salaano inuu idin soo salaamayay dhammaan bulshooyinka Doomo naga gudooma
codsigii iyo ballantii ahayd madaxweynuhu inuu yimaado sideedii bay u taagan tahay wuu rabaa inuu yimaado insha Allah uuna imaan doonaa garaadyada iyo isimada ballantoodii ahayd inuu yimaado deegaanka soo indheeyo xanuunkan coronavirus-ka naga soo dhaxgalay asagoo xirxiran ayaantii ugu dambeysay marka insha Allah hadii aafadan ina dhaafto inuu deegaanka oo dhan soo maro yimaado idin la kulmay aad buu u daneynayay saasuuna anaga noo soo diray marka taas waa si guud hawshan nabadeynta beelaha walaalaha iyo shaqaaqada maalinkii dhaweyd meesha ku dhaxmartay waad ku maasantiin meel fiican bay maranaysaan saad noo sheegteen waa ishaaro fiican oo gabagabay maraysaa insha Allah anaguna inaan goobjoog idin la ahaano oo dhamaystirkeeda iyo go'aamada guud oo bulshadu ku isla qaadato si guudna inaan idin la wadaagno sida xukuumad ahaan nooga go'an tahay nabadeynta deegaanka iyo in la xaqiijiyo in bulshada guud ee deegaanka ku nool nabad ay ku wada noolaato horumarna loo wada jeensado xilligii khilaafaadka xilligii isku dhacdhaca xilligii isqa qabsiga in laga gudbay oo aan u gudubno waji cusub oo dhamaanteen sidaynu nabad horumar gacanta isku qabsan lahayn marka aad u maasantiin dabcan hadalku waa inoo dambeyn doona hadii la yiraahdo waxaan ku soo gabagabeynaa gudoomiyaha gobolka hadii la yiraahdo bismillaahir rahmaanir rahiim aad baan u salaamayaa bulshada qaybaheeda kala duwan sida sharafta leh waxaan ku dhahay u soo dhaweysay maamulka gobolka dowladda ka socday iyo maamulka heer deegaan iyo martida sharafta leh maxaan ku dhahay u soo aaday hawshan nabadeynta marka si guud kulay aniga hadalka waxaan ugu dambeeyay maadaama marti la yahay inaan soo gunaanado muhiimadu marka waxaan aad uga mahadnaqayaa iyadana mahadnaq uga soo gudbinayaa garaadada odayaasha waxgaradka aqoonyahanka hawshan nabadeynta gogasha dhigay soo abaabulay doorka muhiimka ka qaatay si guud baan ugu mahadnaqayaa nabadgelyadu waa waxa lagu gaaro wax walba weeyaan waxa horumar lagu gaaro weeyaan waxa nolol lagu helo weeyaan waxa degmo lagu helo weeyaan waxa dawladnimo lagu helo nabadda wax walba beeso ah taas marka doorka in laga qaato nabadeyntaas doorka qaataan si guud garaadada waan uga mahadnaqayaa shacabka iyo maxaan ku dhahay bulshada qabeeda kala duwanna inay hawshaas kala qayb qaataan si guud iyadana dardaaran baan uga dhigayaa anaga ka dawlad ahaan gudidan kala socda iyo heer deegaan iyo heer gobol waad dareemi kartaan doorka iyo muhiimadda noo leedahay hawshani shaqooyin badan baa la hayay oo laga hayay xafiisyo kala duwan anagoo shaqooyin badan hadda noo yaalo maxaan ku dhahay qorshihii heer gobol baan diyaarin ku howlanayn waxaan markaa idin ku nimaadnay muhiimadda noo leedahay hawshani weeyaan maxaan ku dhahay ka dawlad ahaan insha Allah hawshan inay noo hirgasho oo si fiican noogu dhamaato yaan rajeynayaa waxaan aad maxaan ku dhahay ugu farxsanahay doorka bulshadu ay qabsatay maxaan ku dhahay halkan laga qabsaday sida maxaan ku dhahay master baleenka iyo waxyaabaha kale degmo ahaan iyo deegaan ahaan u qabsateen oo wax lagu farxo weeyaan oo dilina galiyay anagana insha Allah ka dawlad ahaan doorkana waan ka qayb qaadan doonaa waxaan barnaamij gareynaa insha Allah dacmo inay noqoto degmo mar wax maxaan ku dhahay lagu farxo weeyaan boqolkiiba aad iyo aad ma santeen boqolkiiba boqol martidana kulay waxaan soo dhaweynaa maxamed axmed jaamac maxamed bidaanshe bidaan media damco